asalaamu calaykum asxaabta ku xiran kanaalka qaarkiina waxaa laga yaabaa inaad maqasheen erayadan inta uu socdo dagaalka ama gumaadka lagu hayo walaalaheena reer falastiin erayadaasi oo ah zionism antisemitism iyo antizionism waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay erayadan iyo dagaalka ka socda falastiin maxaa iska quseeya haddaba muuqaalkan ayaan kugu soo gudbin doonaa soo dhowaada sanadii 1516 dowladda Cuthmaaniyiintu waxay yimaadeen ama ay qabsadeen dalka Falastiin markay yimaadeen Cuthmaaniyiintu Falastiin waxay Falastiin ka cayriyeen Yahuudii xilligaasi ku sugnayd dalka Falastiin intaas kadib Yahuudu waxay ku kala fardhismeen daafaha dunida sida qaaradda Yurub iyo qaaradda Ameerika waxayna noqdeen dan aan lahayn wax dala waa maxay antisemitism antisemitismku waa fikrad ama xeelad lagu weeraray yahuuda sababta loo weerarayna ay tahay yahuudnimadooda ama in laga soo horjeedo jiritaanka yahuuda waxaa la aaminsan yahay yahuudu inay yihiin dad sixir badan jecel inay dunida maamulaan sidoo kale ah dad jecel dhaca iyo dhibka waana sababta ay ula noolaan waayeen dadkii ay la noolayaan ee ku noola qaaradda Yurub iyo qaaradda Ameerika waana markii ay la yimaadeen fikradda Zionismku haddaba waa maxay Zionism Zionismku waa dhaqdhaqaaq yahuudeed oo loogu ololeeyo inay yahuudu yeelato waddan ayaga u gaara ama isteed ayaga u gaara waxay aaminsan yihiin Zionismku haddii yahuudu ay yeelato dal ayaga u gaara inay isdifaaci karaan dhib kastana ay ka hortagi karaan ayna isku difaaci karaan dal ahaan halkii ay isku difaaci lahaayeen magac yahuudeed waxayna aaminsan yihiin Zionismku in yahuudu ay jirto dhul uu rabbigooda u ballan qaaday haddaba goormay soo ifbaxday fikradda Zionismku waxaa la rumaysan yahay in fikradda Zionismku ay soo bilowday intii u dhaxaysay qarniga 16aad iyo 17aad bilowgeediina waxay ahayd kaliya inay yahuuda ku laabato dhulkii ay Cuthmaaniyiinta ka soo ceyriyeen oo ah Falastiin halkaasi oo ay aaminsan yihiin inuu yahay dhulkii uu rabbigooda u ballan qaaday dhammaadkii qarnigii 19aad waxaa soo baxay nin lagu magacaabo Theodor Herzl oo la yimid fikrad ah in fikradda Zionismku loo bedelo fikrad siyaasadeed dadkana laga dhaadhiciyo in yahuudu ay ka qayb noqoto siyaasadda adduunka sidoo kalena yahuuduna ay yeelato dal ayaga u gaara kongareskii ugu horreeyay ay Zionismku samaystaan waxaa la organize gareeyay sanadii 1897 waxa uu ka dhacay magaalada Basel ee dalka Switzerland Theodor Herzl oo ahaa ninkii keenay in fikradda Zionismka loo bedelo fikrad siyaasadeed ayaa waxa uu isugu wacay yahuudii xilligaasi caanka ka ahayd adduunka oo u kala yimid qaaradda Yurub iyo Ameerika waxaa looga hadlay sidii yahuudu ay u samaysan lahayd isteed ayaga u gaara isteedkaas oo ah isteedka Israel haddaba ma jiraan dad ka soo horjeeday fikradda Zionismka oo ka tirsan yahuuda waxaa jiray urur lagu magacaabi jiray Harin oo ka soo horjeeday inay yahuudu yeelato dal gooni ah waxayna u ololeynayeen inay yahuudu la noolaadaan dadka ay hadda la nool yihiin yacni dadka reer Yurub iyo qaaradda Ameerika laakiin Zionismku waxay aaminsanaayeen si kastoo ay isugu dhejiyaan inaysan la noolaan karin dadkan Zionismku waa fikraddii dhalisay in sanadii 1948 in ka badan 700 oo qoys oo Falastiiniya laga raro xaafadahooda laguna bedelo yahuud Zionismku waa fikraddii dhalisay in ka badan 400 oo xaafadood lagala wareego dadka reer Falastiin dhibaatada xilligaasi soo bilaabatana waa mid ilaa hadda ka socota magaalada Gaza iyo West Bank yahuudu waxay samaysteen in ka badan 60 sharci oo ay ku maamulaan ama ay ku gumaadaan walaalaheena reer Falastiin intaasoo dhib oo dhacayana waxay ku yimaadeen magaca ama fikradda Zionismku sidoo kale waxaa jirto antizionismku waa waxa ka soo horjeeda Zionismkii maanta dhan aan ka soo sheekeynayni oo ah inay yahuudu yeeshaan state ama waddan ayaga u gaara kaasoo ah inay yimaadaan Falastiin ayna gumaadaan dadka reer Falastiin haddaba antizionismku waa dadka ka soo horjeeda Zionismka ama fikradda inay Israa'iil yeelato dal ayaga u gaara waxaa jirta laba arrin oo inta badan dadka ay isku qaldaan waa antisemitism iyo antizionism sida guudna waa laba fikradood oo kala duwan oo aan isku soo dhaweyn sidaan hore u soo sheegnay antisemitismku waa in laga soo horjeesto jiritaanka yahuuda yacni in la cunsuriyeeyo qof yahuuda ama loo dilo sababta yahuudnimadiisa sida uu Adolf Hitler sameeyay oo kale oo dad badan oo yahuuda u dhameeyay dhowr boqol oo milyan yahuud u dhameeyay yacni taasi waa antisemitism antizionismkuna
waxa lidka ku ah ama kasoo horjeeda Zionism-ka oo ah inay yahuudi yeelato dal ama sida hadda ay ku hayso dalka reer Falastiin in laga soo horjeestana waxaa loo yaqaanaa anti-Zionism. laakiin markasta Zionism-ku ama dadka Zionistiska ah mar walba isku mid ayay u yihiin. tusaale ahaan hadda dalka Mareykanka waxaa ka socda maalmahan jaamacadaha dalka Mareykanka dhan ardaydiisu ay mudaharaadayaan oo waxay kasoo horjeedaan dhibaatada baan ee lagu hayo dadka reer Falastiin. Ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu waxa uu ku tilmaamay ficilka ardayda ay sameynayaan antisemitism. muuqaalkan ila daawo. What's happening in America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. But that's not what happened. The response of several university presidents was shameful. Now, fortunately, state, local, federal officials, many of them have responded differently, but there has to be more. More has to be done. It has to be done not only because they attack Israel, that's bad enough. Not only because they want to kill Jews wherever they are, that's bad enough. It's also, when you listen to them, it's also because they say not only death to Israel, death to the Jews, but death to America. And this tells us that there is an anti-Semitic surge here that has terrible consequences. sidaad halkiisa ka garan kartid waxa uu leeyahay jiritaanka yahuudda ay kasoo horjeedaan. dadkaasna kama soo horjeedaan, waxay kasoo horjeedaan dhibaatada ka socota Falastiin iyo dadka la dhameynayo. waxa ay sameynayaan fikradda ay xambaarsiin waa anti-Zionism. Zionism-ka ay kasoo horjeedaan. intaas ayaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago. haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan like saar si uu dad badan u gaaro. haddii aadan nagu soo biirin waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo aad muuqaalka subscribe saartid. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. I hope inaad muuqaalka ka heshay. Peace.